kulanti wacan oo aqoonta wadeel halka adiga daawaneysaan waa channelka Wacana Media ku soo dhawaada wararkii caalamka iyo Soomaalida qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid khilaaf weyn oo soo kala dhex galay golaha shirka wadatashiga qaranka u saaran imika inay kala dareeraan madaxweynaha xilku ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo mudane Maxamed Xuseen Rooble oo hub aruursi iyo ciidamo ka bilaabay magaalada Muqdisho iyo dagaal laga baqayo inuu ka dhaco madaxtooyada dhexdeeda ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa kursigiisii xildhibaanimo muran la geliyay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay isaga iyo mudane Maxamed Xuseen Rooble ugu dambeyntiina daawadayaal ciidamada Puntland ee booliska ayaa xiray 13 askari oo ka tirsan daraawiishta ciidanka Puntland kadib markii ay ka qayb qaateen shaqo ka dhacday magaalada Qardho intaas oo ay ahayn qodobadii ugu door corona warkeena haddii ay tahay markii ugu horeysay oo soo booqato channelkan Wacana Media ha iloobin inaad channelka subscribe dhahdid gambaleelkana taabatid oo kamid noqotid baaweynta halkaas ku xiran muuqaalkana inaad leeg iska saartid shirka wadatashiga qaran ayaa galay maalintiisii afaraad oo xiriira kaas oo ka soconaya teendada Afisyooni ee magaalada Muqdisho ay goobjoogna ka yihiin 5 maamul goboleed gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mudane Maxamed Xuseen Rooble kaas oo looga doodayo amniga dalka iyo doorashooyinka sida wararka qaar ay sheegayaan waxa ka diidan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen sidoo kale caqabadaha doorashooyinka ayaa iyo dadjargelintooda ayaa shirka si weyn looga doodaya walow oo midka amnigu uu ugu daray sidoo kale golaha wadatashiga qaran ayaa waxay ka doodayaan talooyinka ay soo jeediyeen midowga musharaxiinta ururada bulshada rayidka hooyooyinka iyo beesha caalamka kaas oo ku saabsan in doorashadu ay u dhacdo si hufan waqti koobanna lagu soo gabagabeeyo shirka wadatashiga qaran ayaa dhaafay muddadii loogu talagalay walow qodobada qaar la isku mari laayay uuna ugu weyn yahay ka amniga oo uu doonayo mudane Maxamed Xuseen Rooble in isaga lagu wareejiyo si uu doorashooyinka u sii wado wax kasta ku saabsan amniga ama doorashadana ay isaga hoos imaadaan isagana lagala xisaabtamo walow taasi la isku mari laayay sidoo kale waxa laga sugayaa natiijada ka soo bixi doona shirka ay ka soo saaraan qodobo wax ku ool ah kuwaas oo ah in doorashadu ay u dhacdo mid sinaana iyo hufnaanta doorashooyinka iyo habsami u socodiyada iyo muddo cayiman in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka golaha shacabka ayaa muddooyin badan soo jiitamayay taas oo la isku qabqabsanayay kuraasta walow imikana dadka siyaasadda Soomaalida indheey ay leeyihiin waqti dheer ay qaadan kartaa oon caynayn maadaama madaxda maamul goboleedyada ee ra'iisul wasaaraha dalka ay isku mari laayeen sidii loo wajihi lahaa doorashada iyo dhameystirkeeda warar hoose oo soo ifbaxay ayaa waxay sheegayaan golaha wadatashiga qaran qaar kamid ah waa maamul goboleedyada in ay ka soo horjeedaan sida uu mudane Maxamed Xuseen Rooble doorashada u wajahayo oo doonayo in loo soo gabagabeeyo gebi ahaanba ay yihiin kuwa ka soo horjeeda sidoo kale amniga in lagu wareejiyo ra'iisul wasaaruhu dalbaday wax kasta oo ku saabsan amnigana in isaga lagala xisaabtamo walow taas ay ka diidan yihiin madaxweynaha xilkiisu dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa muruq iyo maalba imika xilligan ku bixinaya inaan doorashooyinka iyo amnigaba si buuxda aan loogu wareejinin mudane Maxamed Xuseen Rooble madaxweynaha xilkiisu dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa imika hub aruuris ku jira iyo ciidamo ayaa leeyahay daawadayaal walow laga cabsanayo madaxtooyada dhexdeedaba inuu dagaal ka qarxo saacadaha soo socda xogo hoose oo warbaahinta heshay ayaa waxay sheegayaan inuu imika qorsheynayo xafiiska madaxweynaha xilkiisu dhamaaday inuu awood ciidan kula wareego madaxtooyada dalka walow saraakiil ay isaga ay xulafo yihiin ay urursigaas ay ka qayb qaadanayaan oo ay wakiil uga yihiin imika waxa wada degan madaxtooyada ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha xilkiisu dhamaaday
dhowr sargaal oo ka tirsan ilaalada madaxtooyada ayaa sheegay dhowrkii habeen ee la soo dhaafay in ciidamo tiro badan oo gobollada laga kala keenay ay soo gaareen dalka lana geeyey madaxtooyada Soomaaliya, kuwaas oo tiradu gaaraysay ilaa iyo 200, kuwaas oo watay dariiska koofiya casta aadna u hubaysnaa. ayaa waxaa lagu arkay xayndaabka u kala dhexeeya ra'iisul wasaaraha dalka iyo madaxweynaha xilku ka dhammaaday. ciidamadan soo gaaray madaxtooyada ilaa 200 gaaraya oo uu hogaaminayo Genaraal Cilmi Maxamed Biixi, kaasoo kalsooni weyn ka haysta si ay wararku sheegayaan madaxweynaha xilkiisu ka dhammaaday waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. taasina waxay soo ifbaxday baa leeyahay kadib markii uu khilaaf weyn soo kala dhex galay taliyaha xoogga dalka Odawaye Yuusuf Raage iyo madaxweynaha xilkiisu dhammaaday. warar hoose warbaahintu heshay ayaa waxay sheegayaan taliya Odawaye inay mowqifkiisa ay bedeshay kadib afgambigii 27 Diseembar ee dhicisoobay ee uu ku kacay madaxweynaha xilkiisu ka dhammaaday. sidoo kale warar hoose oo ka soo baxay xafiiska Rooble ayaa waxay sheegayaan inay ilaaladiisa ku biiraan ciidamo aad u tiro badan cadadooda la sheegin, kuwaasoo militariga Soomaaliya ka mid ah. ilaa iyo imikana waxaa ka amar qaata baa la leeyahay mudane Maxamed Xuseen Rooble 100 ciidana oo dhinaca ilaaladiisa. xiisadan askartan iska soo horjeeda ee ay kala haystaan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday iyo ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa khalkhal abni sii gelinaya dalka. daawadayaal, sida ay qof kasta wada ogtahay, dadka siyaasadda dalka indhendhay ayaa waxay leeyihiin xaaladda hal la qaboojiyo, laakiin xaaladdu waa mar ay faraha ka baxday maxay taraysaa hal la qaboojiyo. bal waxyaalaha kale oo ka soo cusboonaadana waynu eegi doonaa. imikana aynu fiirina bal dhinacyada kale ee warkeena. caqabad weyn ayaa soo wajahday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maxamed Guuleed Khadar kadib odayaasha ka soo jeeda waqooyi ee dhaqanka kadib markay sheegeen in dib u eegis lagu sameeyo kursigii loo doortay dhowaanahan. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobollada waqooyi ayaa dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo kursigii loo doortay Mahdi Guuleed waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka kaas oo sheegay in dib u habeyn lagu sameeyo kursiga isaga loo doortay, kaasoo uu ka mid noqday waargadii soo xuleysay doorashada. ayaa sheegay inuu ka mid noqday baarlamaanka 11aad uuna noqday wasiirka koowaad, kursigaas oo imika ay doonayaan in dib u eegis lagu sameeyo. Mahdi Guuleed oo ayaan tanba weji gabax la kulmayay ayaa imikana odayaashu waxay ku haystaan kursigiisii in dib u eegis weyn lagu sameeyay. ayay leeyihiin waa golihii soo xulayay ergadii isaga dooratay. ugu dambeyntiina booliska maamul goboleedka Puntland ayaa xiray 13 askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland kadib markii loo soo jeediyay eedeymo badan. booliska magaalada Qardho ee gobolka Karkar ayaa 13kan askari ee ka tirsan ciidanka Puntland halkaasi ku xiray kadib markii lagu soo eedeeyay inay damceen hub ku kaysanaa tababarka horgoble in ay la baxaan, taas ay sheegeen booliskuna in ay ka hortageen. daawadayaal, qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.